xubno ka socday Komishinka Xuquuqal Insaanka Somaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha Komishinka Xuquuqal Insaanka ee gobolka Gaadhay ayaa maanta kulan la qaatay laamaha kala duwan ee amniga ah ee gobolka Gaadhay. Kulankani oo ujeedadiisu ahayd sidii la iskugu xog wareysan lahaa arrimaha xuquuqal insaanka ayaa ka qabsoomay saldhigga dhexe ee magaalada Boorama. Kulankani markuu soo ilaaday waxa warbaahinta la hadlay xubnaha ka socday Komishinka Xuquuqal Insaanka Somaliland ayaa ka warbixiyay ujeedka safarkooda. Ka tirsan Komishinka Xuquuqal Insaanka heer qaran oo kormeerkayga caadiga 3 bilood laha oo ku marinay saldhigyada iyo jeelasha iyo xeeraalinta iyo maxkamadaha. Marka waxaanu joognaa maanta gobolka Gaadhay oo taliyayaasha ay joogaan hawlaha shaqo kormeerkii arrimaha xuquuqul insaanka ayuun baan u soconay inaanu wixii waajibkayga aan ku gudano oo marno saldhigyada wixii rumaana wixii kale iyo xaaladdu say tahay iyo cadaaladdeedu waanu sheegaranayno warbixin fiican wayna siiyeen kulay reportkayga aanu ku soo saarnaa wixii aanu aragnay laakiin aad baan ugu mahadnaqaynaa say noo soo dhaweeyno gacan qabteen. Waxaan joognaa xabsiga dhexe gobolka Gaadhay gaar ahaan degmada Boorama wafti ballaaran oo ka socda Komishinka qaranka oo hogaaminayo Komishineer Rashid iyo xubnihii kale Komishinka Xuquuqal Insaanka qaranka waxaan ugu soo dhaweynayaa kormeerkii shaqada caadiga ah ee Komishinka qaranka loogu yimiday wafti ballaaran oo Komishinka ah waxaan ku soo dhaweynaynaa xarunta gobolka Gaadhay waxaan diyaar u nahay wax kasta oo hawshooda oo ay u baahan yihiin inaan ka caawino waxaan diyaar u nahay oo mar labaad haddana u ballaminay saldhigyada iyo laamaha booliiska wax kasta oo badan iyo fadhi kasta oo badan waxaan diyaar u nahay inay ogaadaan maxaabiista noo xiran iyo dhulka ay ku xiran yihiin. Waxaan halkan ku soo dhaweynayaa Gudiga Xuquuqul Insaanka Jamhuuriyadda Somaliland oo nagu soo booqday xabsigan gobolka Gaadhay anigoo ah kusimaha taliyaha xabsiga gobolka Gaadhay Gaashaan Axmed Nuur Cadar. Shaqo wanaagsan baan leeyahay sida kartida iyo sharafta leh ay noogu soo jirmaadeen galin hore oo shaqadu socoto. Gudiga Xuquuqul Insaankana waa soo dhaweynaya.